garoon casri ah nooca u dambeeyay hadda lagu ciyaaro kubadda cagta ayaa maanta laga hirgeliyay xaafadda Balaase magaalada Burco. Xaflad lagu furayay garoonkaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha Olombikada Somaliland Xasan Waraaba Cadde, maayirka magaalada Burco Maxamed Muraad, maayir ku-xigeenka Burco, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd, Liban Cabdullaahi Xasan Nuur iyo Marwasaare Basbaas oo kamid ah garabka haweenka xisbiga kulmiye. Waxaana ciyaartii ugu horeysay garoonkaasi lagu furay ku wada ciyaaray ardayda dhagaha naafada ee dhigta dugsiga Cabdo Aire magaalada Burco. Ugu horeyn waxaa furitaanka garoonkaasi ka hadlay Cabdikariim Muraad oo kamid ah gudida qabanqaabada garoonkaasi, isagoo dhammaanba gacmo furan ku soo dhaweeyay dadweynaha magaalada Burco una hambalyeeyay cid kastoo ka qayb qaadatay dhisitaanka garoonkani. waxaana maanta ku badsanaya injineerkii maanta gogley maanta yeeshay gogley injineer khabiirka ku Xasan Waraaba Cadde oo garanaysan Somaliland aad iyo aad baan ugu mahadnaqay yani sida wanaagsan hagalaanta iyo garoonka Jaayid Xasan Waraaba Cadde oo ah gudoomiyaha Olombikada gobolka Togdheer qaranka Somaliland qaranka Somaliland aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa yani sida kalsoonida leh ee uu noogu yimi caasimada Hargeysa sida garoonka Burco noogu goglo aad baan ugu mahadsantahay Xasan gudoomiye aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaan kaloo iyagana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa injineeradii iyaguna leenkeeno sameeyay solarta systemka solarta iyo shirkadda korontada ee Helco iyadoo dabka wanaagsan loo xidhisay aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa iyo dhalinyaradii fiicneed aad ka wacday ee ka qayb qaadatay dhisitaankii xafladda. waxaa iyaguna aad iyo aad ugu mahadnaqayaa شخصي أما إن كيسو يبي روجن وقت كيس جليه جامع يره جامع محمد عبدي هذه أدوار سيجروا بمعنى. iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay madaxdii ka soo qayb gashay xafladda furitaanka garoonkaasi oo u horeeyay gudoomiyaha Olombikada Somaliland Xasan Waraaba Cadde, maayirka magaalada Burco iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Marwasaare Basbaas iyo Liban Cabdullaahi Xasan Nuur. waxaana isku mid uga dareen celiyeen garoonkan casriga ah ee markii ugu horeysay laga hirgeliyay magaalada Burco, isla markaasna waxay u mahad celiyeen maalgashadayaasha geliyay garoonkani waxayna yiraahdeen sida garoonka ugu horeeyay ee Burco laga sameeyay iyadoo imika garoonka ugu horeeyay ee dalkeena laga hirgeliyay ay 8 bilood ka soo wareegtay. magaaladu waa magaalad nadiif ah, guud caasimadana ka nadiifsan. عاوينو بلامي إنه أول قلينه أيرين إنه فاتحينه كيد كمدين الله كبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أنا ما نحاول نحتاج لهاي وحلنا هاي هذه أضبط ما تسمعي وحسبوا بلامي قبل كتب نرجع هذه مدة بعوض وتباهي وين اللوجو الله هاي مقالد ودرامة موت وبحث يقول له يجي يباهي حافظ وحي هذه كراي هذه نفس الكلام وحنا لنا هو واحد كنت بيرجل لي سبورت يا اسمه دغورياش ciyaartooyda waxaan leeyahay bal garoonka cusub ee uu soo biiray cid kasto maal gelisay oo Cabdikariim Muraad ka wakiil yahay waxaan leeyahay hambaliyo aad baan ugu hambalyeynaa cid kasto maal gelisay cid kasto ka qayb qaadatay in la helo garoon rooga oo laga furo caasimada xigeenka Somaliland ee Togdheer. si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horeysay garoon noocan oo kale laga hirgeliyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. garoonkan ayaa la jaan qaadaya garoomada casriga ee adduunka. waa Jaamac Salabaan Cumar.